بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. mowduuceenna ama muxaadaradeennu caawa waxay ku saabsan tahay waxa shareecada islaamku ay ka qabto jacaylka loo baahan yahay inuu dhex maro ninka iyo xaaskiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu ka yidhi, nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uu ka yidhi, ama ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga arkay, jacaylka qoyska looga baahan yahay inuu dhex yaallo waxaa noogu filan xaqnimadkiisa iyo wanaaggiisa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisii qur-aanka ahaa ku dhex sheegay. nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiidta saxiixa uu ku caddeeyey. wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu ruum markii uu aayado badan ka soo hadlay oo ilaahay uu isku soo mahdiyey, ilaahay uu khalqiga bini aadamka uu ka soo hadlay. ilaahay wuxuu yidhi wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja. ilaahay calaamaadkiisa waaweyn iyo aayaadkiisa kowniga ah ee tusinaya ilaahay awooddiisa iyo jiritaankiisa waxaa ka mid ah inuu adinka idin abuuray, haddana naftiinna uu inkaga abuuray xaasas oo waxa weeye dad yacnii labadii lamaana ay yihiin isku nuuc bini aadam ay isla yihiin. saddex calaamo uu markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala daba dhigay zawjadaas iyo zawjkaas. saddexdaas oo ah aasaaska ugu waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qoysaska dhisitaankooda ku sheegay ama jiritaankooda uu ku caddeeyey. tan koobaad waxa weeye litaskunuu ilayha, si aad ugu soo hoyataan, ugu soo xasishaan, ugu soo dumantaan xaaskaas naftaada lagaaga sameeyo oo kugu nuuca. oo waxa weeye xaaskii ugu horreeyey waa xaawo oo laga abuuray nebi aadam feertiisii oo bini aadamkii sidaas uu ku soo socday. marka waxaa imaanaya xaas qofku markii uu yeesho inuu usoo hoydo, inuu usoo dunmo, inuu meesha ay joogto uu ku soo cararo oo uu usoo nasiino doonto. waa mid. tan labaad ilaahay wuxuu yidhi wajacala baynakum mawadda. dhexdiinna ilaahay wuxuu dhigay oo markaas laga hadlayo xaaskii iyo ninkeedii, jacayl ayuu ilaahay dhexdiinna dhigayuu yidhi. tan saddexaad waa raxma, naxariis ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdiinna yeelay. kabacdina ilaahay wuxuu yidhi aayaadkaas waxaa ku fakaraya oo ay anfacayaan oo aayaad ilaahay u arkaya dadka fakaraya oo ilaahay ku cibro qaadanaya. marka isu soo dulmidaas iyo raxmadda iyo mawadada, saddexdaas qodobba waa saddex muhiim u ah qoyska muslimka ah. midda hadda aan ka hadlayna mid kasta ahi waa mowduuc dheer. waxa weeye mawadda, jacaylka waxa la yidhaahdo oo loo baahan yahay labadan qof dhexdooda inuu yaallo, ninka iyo xaaskiisa dhexdooda inuu yaallo. mawadadaas ilaa fasiro fara badan ayaa culimmadii islaamka salafkii iyo asxaabtii ay ku fasireen. hadda waxyaalaha aan kusoo gaabsanayna waxaa ka mid ah xaafidka leeraa ibnu kathiir tafsiirkiisa markuu sharxayay wuxuu yidhi ilaahay raxmaddiisa iyo nicmadiisa uu dhammaystiray waxaa ka mid ah inuu maaragtay bini aadamkii dhexdooda
dad isku nuuca uu xaasas iskaga dhigay, haddana uu dhexdooda naxariis dhigay, mawaddo dhigay, jacayl. markaasuu yidhi wahiya almaxabba, waxa weeye waa jacaylka labada qof ay isu qabaan. kabacdi wuxuu yidhi ninku xaaskiisa waa uu haystaa jacayl uu u qabo u haystaa, ama naxariis ayuu u haystaa, ama awlaadoo uu ka dhalay ayuu u haystaa, ama ayadiioo u baahan biil oga baahan u haystaa, ama isu soo dulmidaas ayuu u haystaa, wahaakadaa. marka qodobkan hadda si kooban markaan ugu celsho, jacaylka loo baahan yahay in ninka laga helo iyo xaaska labadaba waxa weeye waxaa ku filan jiritaankiisa iyo xaqnimadiisa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa kariimka ku sheegay. mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka uu ku caddeeyeyna, ninkuna kama faani karo, gabadhuna kama faani karto. qof dhihi karo jacayl waxa leeraa maxay tahay, maxaa jacayl looga baahan yahay ma jirto. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uu jideeyey. qofka koleyta ka faanayana doqonnimo iyo maaragtay waxa u leh ama jahli waxa weeye waa ku jira. maxaa yeele haddaanba jacaylkaasi jirin inaan la wada jooginay u badan tahay. intaas waxaa dheer axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan u gelaynaa. weliba axaadiidta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku caddeeyey jacaylka uu xaaskiisa u qabo. waxaa laga yaabaa qofku inuusan caddaysa karin, ama gabadhii ama ninkii inuusan dhihi karin midkood waa jeclahay xaaskayga, ninkii uusan dhihi karin, ama gabadhii aysan dhihi karin waa jeclahay ninkayga. qofku inuu yidhaahdo waa jeclahay waxa weeye horta waxay ka mid tahay waxyaalo fara badan oo kaa difaaci kara xataa dadkii kugu soo dhiira lahaa iyo dulmi iyo isku dirdir kula soo aadi lahaa. qofku hadduu caddaysto inuu lamaanihiisaan kala jecel yahay, qof kastahay kuma soo dhiira karo. maxaa yeele qofkan wuxuu is leeyahy qofka ku yidhi waa jeclahay miyaad dhihi kartaa, ku diri kartaa. marka waa sunno nabawiye ah oo xabiibkeeni subanaa sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay. xadiid saxiixu muslima oo caaisha warinaysa ayaa waxay ku tiri, anigu xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam mid aan ka masayray ama ka hinaasiyey ma jirtay tiri, markii laga reebo khadiija. khadiija unbaan ka hinaasiyey ama ka masayray. khadiijana lama aana kulminay tiri. caaisha dhahaysa allah ka raali noqdo. khadiijo anigoon arag ayaan ka hinaasiyey oo macnaha ka masayray. waxayna tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam markasta khadiijo ayuu hadalkeeda soo qaadi jiray, waa uu sheegi jiray. nabigu neef ayuu intaqalo wuxuu u diri jiray dadkii saaxiibadii khadiijo oo dhihi jiray u geeya. markaas ayaan waxay tiri maalin maalmaha ka mida nabiga ka caraysiiyey calayhi salaatu wasalaam oo ka xanaajiyey oo aan iriyay tiri khadiija, markasta khadiijo ayaad ku haysaa. markaasuu xadiidka saxiixu muslimka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innii qad rusiqtu xubbahaa, aniga waxaa la igu arsaaqay oo la isiiyey jacaylka khadiijo. yaa khadiijo jacaylkeeda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala igu arsaaqay yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam. ma ahan khadiijo meel dhow igama taalo, khadiija ma ahan qof igu sahlan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu igu arsaaqay oo qalbigayga ka buuxiyey, oo nabigu wuxuuba ka dhigay qadartii wixii loo qadaray oo kale. ilaahay qalbigayga wuxuu ka buuxiyey jacaylka khadiijuu yiri. marka khadiijo sheegideedu ma ahan hawl sahlan. khadiijo jacaylkeedu ma ahan wax aan iska dhahayo. khadiijo jacaylkeedu ma ahan sheeko ma ahan. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslimka wuu la jahray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, innii qad rusiqtu xubbahaa, waa la igu arsaaqay jacaylkeeda. caaisha ama igu qabso ama igu dhib ama iga diid, khadiijo jacaylkeeda ilaahay baa igu arsaaqay. riwaayo kale waxay tiri caaisho, maxaa maalin kasta u sheegaysaa islaan duqowdo carabeed oo dhabanadii noqdeen sidaas, gabar yara ilaahay kuugu bedelay. markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, ilaahay iguma bedelin qof ka khayr badan. uu yidhi khadiijo qof ka khayr badan ilaahay iguma bedelin.
aamanat bi id kadabani annaas. khadiijo aamanat bi id kafara bi annaas. khadiija waa i rumaysay markii dadku ay igu kufriyeen. wa sadaqatnii id kadabani annaas. waa runtaa ayay i tiri markay dadku yidhaahdeen waa beenta. wa waasatnii bimaalihaa. waxayna igu xiriirisay xoolaheeda. ilaahayna awlaadu iga siiyey. sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam khadiijo u ammaanay. ilaa intaasoo xadiid oo saxiixulbukhaari uu baab dhan ka dhigtay khadiijo ammaanteeda iyo wanaagga ay leedahay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey ayuu nabigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam. marka jacaylka qofku inuu xaaskiisa ama gabadhu ninkeeda inay muujistaan waa sunno nebi maxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. ma ahan wax la isku caayo, ma ahan wax laga xishoodo, ma ahan wax la iskula jeesjeesa ma ahan. laqad kaana lakum fii rasuulillaahi iswatun xasana ama uswatun xasana, labada qiro oo qirooyinka 7 ka mid a. ilaahay rasuulkiisa waxaa inkugu sugan dayasho wanaagsan. waa wax nebi maxamed uu uga daysanayo qofka hadduu yidhaahdo xaaskayga waan jeclahay, ama maaragtay gabadha ay tirahdo ninkayga waa jeclahay, waa sunno nebi maxamed looga daysanayo calayhi salaatu wasalaam. marka qofnow ha u arkin wax liita. xadiid kale ee saxiixulbukhaariya oo uu warinayo camar binu caas, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imiduu yidhi maalin maalmaha ka mid a. markaas ayaan waxaan ku iriyu yidhi ayunnaasi axabu ilayk. rasuulka ilaahay oo dadka yaa u jecesha. u fiiris, xadiidka waa saxiixulbukhaari. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha. dadka waxaan u jeclahay caaisha. xaaskayga caaisha ayaan dadka u jeclahu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. allahu akbar. markaasaan waxaan iriyu yidhi min alrijaal. raggan ayaa u jecesha. markaasuu yidhi abuuha, aabaheed. markaasaan iriyu yidhi kabacdi yaad jeceshahay. markaasaan iriyu yidhi uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cumar bnu lkhadaab. cumar binu khadaabaan jeclahay. markaasuu nabigu tiriyu yidhi rag kaloo sii tiriyey. waa in la jeclaado abubakar iyo cumar, iyo in la jeclaado waa waajib, iimaankuna ku xiran yahay. marka u fiirso, markii nabiga xadiidka bukhaariga uu camar binu caas u weydiiyey dadka yaa u jeceshay, muxuu yidhi caaishaan u jeclahay. gabadh xaaskayga caaisha ayaan u jeclahay dadku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. u fiirsa marka labada xadiid, midna waa saxiixu muslim, midna waa saxiixulbukhaari, oo nebi maxamed uu caddaynayo jacaylka uu xaasaskiisa u qabo. marka qofkii u arka in uu jacaylka qofka wax ugu darsan yihiin sheegow, haddaba ogow ceeb u arkow, ogow in aad nebi maxamed khilaafsanta calayhi salaatu wasalaam. haddii marka ay doqonnimo iyo jahli iyo qofka ay u geynayeen, calaaya kulli xaal ha ogaado waxaana inay yihiin wax xaq ah inay ha ogaado. nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasoo jeer ayuu caddeeyey jacaylka uu u qabo xaasaskiisa. caaisho intaasoo jeer uu sii caddeeyey gaar ahaan. marka waa wax muhiim ah in aan ogaano, maxaa yeelay qofkaani marka uu la jahrayo oo caddaynayo jacaylka uu u qabo qofka kaloo wax ugu darsan yihiin, gabadhii ay ninkeeda u qabto, ama maaragtay ninka uu xaaskiisa u qabo, waa inuu ogaadaa qofkaani inuu cid kasta uga sokeeyo. ninku waa inuu ogaadaa gabadhaani inay cid kasta uga sokayso. ayaduna waa inay ogaataa in ninkeedu cid kasta uga sokeeyo, oo booska ay isu joogaan inaan cid u joogta aysa jirin. waa inay ogaadaan. waxaa noo caddaynaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam mar uu kasoo laabtay jihaadyadii uu aadi jiray mid ka mid a, ayaa waxaa la kulantay gabadhii la dhihi jiray xamna bintu jaxsh. markaasaa waxaa la yidhi walaalka cabdullaahi binu jaxshi waa dhintay. markaasay tiri inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahayna dembi dhaafay u weydiisay. kabacdi waxaa la yidhi abtiga xamza binu cabdilmutalib waa dhintay. waxay tiri inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. haddana dembi dhaaf ayay u weydiisay. ilaahay u dhaafay tiri. labadaas markii loo sheegay, waxaa la yidhi ninkaagii zawjkaagii muscab binu cumayr waa dhintay. markii la yidhi ninkaagi waa dhintay, labadii hore waa inna lillahi tiri iyo iyadoo dembi dhaaf dalabtay.
markii la yiri ninkaaga waa dhintay waa ay qaylis ayada dhamma cirkay ku dhagtay waa qaylo ay afka ku dhifatay ma dhihin inna lillahi ma dhihin ilaahay oo u dhaaf waa qaylis markaas ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inna zawja almar'ati minha la bimakan nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam naagta ninkeedu meel fog ayuu oga yaalaa meel fog oo aan dadka kale aysan gaarin jacaylkooda ayuu oga yaalaa naxdinta ay ka naxaysaa ama asagu xaaskaaga dhimatay hadii leera uu ka naxaya waa ka duwan tahay marka qof kasta waa inuu ogaado taas nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inna zawja almar'ati minha la bimakan naagta ninkeedu wuxuu oga yaalaa uu yiri nabi calayhi salaatu wasalaam meel fog uu oga yaalaa maxaa yeelay abtigeed iyo walaalkeed inna lillahi iyo istighfaaray ku soo gaabsatay laakiin ninkeedii markii loo sheegay inna lillahi tiraa waa ka gaari weyday ilaaha u dhaafo u naxariiso waa ka gaari weyday xaalad kale ayay gashay ma waxaan leenahay ninkaas sida dumarka qayb yiraahdaan waxba igama galinay waxa saas iyo saas u yahay ma aha nabi maxamed alayhi hadalkan calayhi salaatu wasalaam marka qof kastaahe waa inuu taas ogaado oo dareensanaada hadduu xataa qofku uusan cadaysan karin waa inuu ogaado xaqiiqda waxyaalaha kordhinaya jacaylka labada zawjo ee diinteenu amartay waxaa ka mid ah al-ixtiraam waa in la helaa is-ixtiraam labadooda qofba qofka kale uu ixtiraama ixtiraamkaas waxa weeye waxuu ku dhex jiraa hadalka ilaahay ee uu yiri qowlka ilaahay wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka kula dhaqma macruuf iyo wanaag macruufka oo la iskula dhaqmo ayaa wuxuu keenayaa oo ixtiraamku qayb ka mid ah haddii ixtiraam la waayo waxa weeye ma jirayso nolol sax ma jirayso waxaa ka mid ah waxyaalaha jacaylkii kordhinaya almazax in la kaftamo oo labadii qof ay wada kaftamaan nabigu calayhi salaatu wasalaam intaas ayaa axaadiista saxiixa ah ay noo warisay asagoo xaasaskiisa la kaftamaya haddaan hal tusaale soo qaadano xadiis bukhaari iyo muslim ah oo caaisha ay warinayso ayuu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam innii la a'lamu idha kunti anni raadiya wa idha kunti calaya ghadba caaisha anigu waan garanayaa marka aad raalli iga tahay oo aad igu faraxsan tahay iyo marka xoga ii careysan tahay dacarada maaha nacaybkii nabi maxamed hadii la nacbaado waa lagu gaaloobaya waxa weeye marka xaaladaadu aysan okay ahayn iyo markii aad faraxsanto igu faraxsan tahay waa kala aqaano yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas waxay ku tiri min ayna ta'rif dhalika rasuulka ilaahay xagee see u garatay tiri markaasuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam amma idha kunti anni raadiya fa innaki taqulin la wa rabbi muhammad wa idha kunti calaya ghadba fa qulti la wa rabbi ibrahim wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii aad raalli tahay oo aad faraxsan tahay waxaan ku gartaa waxaad tiraahdaa uu yiri marka aad sheekaynaysid maya nabi maxamed rabbigiisan ku dhaartay madka sheekaynaysid nabi maxamed rabbigiisan ku dhaartay aad tiraahdaa uu yiri markaad faraxsan tahay saasan u garanaya markaad laakiin yara careysan tahay waxaad tiraahdaa uu yiri maya nabi ibrahim rabbigiisan ku dhaartay marka nabi maxamed magaciisa markaas ma sheegto wa rabbi muhammad meeshay markay faraxsanaad ka tiraahdo marka nabiga waxa weeye xogaa markaadan okay aada ii ahayn uu yiri waxaad tiraahdaa wa rabbi ibrahim nabi ibrahim rabbigiisan ku dhaartay markaas waxay ku tiri ajal wallahi ya rasuul allah ma ahjuru illa ismak nacam ay tiri rasuulka ilaahay waa runta saas weeye laakiin waxaan ka tagaa kaliya magacaaga kaliyaan ka tagaa adiga kaama haajiro qalbigayga waad ka buuxdaa waxa weeye nacayb hadda taas ma suurtoobi karto qofku waa ku gaaloobay hadduu nabiga nibcadeeb marka xoogaa yara carooday tiri magacaagan iska dhaafa marka nabi ibrahim magaciisaan sheegahay tiri allahu akbar marka kaftanka waa loo baahan yahay sidoo kale caaisha waxay warinaysaa xadiis abi daawuud waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan anagoo safar ku jirna maalin la tartamay tiri markaas ayaan nabiga ka dheereeyay calayhi salaatu wasalaam kabacdi markii dambe on cayileeyay tiri xoogaa hilibka i koray ayaa nabigu ila tartamay oo aan tartan wada galnay markaasuu nabigu iga dheereeyay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yiri haadihi bitilka sabq tani tii hore u dhigantaa marka caaishoy ogow markii hore iga dheeraysay anigana haddaan kaa dheeray uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kaftankii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xaasaskiisa la kaftamay hadda kaftanka nabigu waa badnaa waxaan run ahayna kuma kaftami jirin laakiin markaan xaasaskiisaan ka hadlayna waxaa ka mid a waxyaalaha labada qof jacaylkooda keenaya
al-intibaah wal-isghaa, in labada qof markay wada hadlayaan ay isu soo jeedaan oo isdhagaystaan. haddii gabadhii markii ay ninkii la hadlayso, xaaskii markii ay kula hadlayso, haddaad tv-ga inta qabsatid aada cayaarihii iska daawatid, ama siyaasadii iska daawatid, ama filim iska daawatid, ama waxyaala kale iska daawatid, ayadana maanta o dhan wax kuu sheegayso kaliya aada iska leedahay, taas waxa weeye qalbigii qofku baabi'inaya, qalbigii ayuu dhaawacaya. ayadii oo kale sidoo kale markii ninkeeda uu la hadlayo waa inay ayana dhagaysataa. hadday dumarka qaarkood waxaa laga yaaba inay telefoon inta iska qabsadaan markii uu ninkiioo jooga ama uu la hadlayo ay maanta o dhan ba aysan u aaba yeelin, ama ay waxyaalo kale isku mashquuliyaan. in labada qof ay isdhagaystaan waxay tusinaysaa is-ixtiraamka iyo isqadarinta iyo isqiimeynta, waa waxa jacaylka labada qof kordhinaya. haddii la waayana cagsigeed oo qofku uu qofkii kale kasii jeesto uu ismashquuliyo, waxa weeye waxay tusinaysaa qofka qalbigiisa wax baabi'inaya weeye. marka waa in qofku wax kasta waxa uga muhiimsan qofkan kale uga muhiimsan. haddii xataa lacala wax uu ku sii jiro waa inuu ka codsada yiraa wax yar aan waxaas dhamaystir, laakiin haddaada qofka u aaba yeelin, taas waxa weeye dhibaatay keenaysaa. waxaa ka mid a waxyaalaha labada qof jacaylkooda keenaya ee diintuna amartay inay qofba qofka kale isu udgiyo oo isu carfiyo. waxa weeye waana wax salafkii iyo dhammaan ka sugnaaday. cabdullaahi bnu cabaas radiallahu canhu, nabiga in adeerkiisa ahaa oo la dhihi jiray xabrulumma turjamaanu lqur'aan, ibnu cami rasuulilaahi, nabigu ugu duceeyay qur-aanka ta'wiilkiisa iyo fasirkiisa in ilaahay fahansiiyo, ayaa wuxuu yidhi innii la atazayanu lizawjatii kamaa uxibu an tatazayana lii. anigu xaaskayga waxaan isu qurxiyaa sida aan u jeclahay inay isu soo kay qurxiso, sida aan u jeclahay inay isu soo kay qurxiso ayaan isu qurxiyaa xaaskayga, ayay tiri. markaas ayuu yidhi cabdullahi bnu cabaas aa yidhi xaaskayga waxaan iskuu qurxiyaa sidaan u jeclahay inay iskuu kay qurxiso, waxaana ku dhaqmayaa huu yidhi ilaahay qowlkiisii uu yidhi walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf. xaasasku waxay inku leeyihiin waxa aad ku leedihiin oo kale, si wanaaga waxyaalaha ugu leedihiin oo kale. ilaa qofba qofka kale xuquuqu ku leeyahy, sidaasoo intaasoo kale inku leeyihiina ilaahay yiruu yidhi. cabdullaahi bnu mascuud allaha ka raali noqdo oo ka mid ahaa asxaabta kan rasuulka ugu daya og, sidaasuu samay jiray isqurxinta iyo waxyaalahaas iyo is-udginta. markaasuu wuxuu dhihi jiray markii la weydiiyo afalaa tuxibuhu min imra'atik, miyaadan jeclayn inaad haweenta xaaskaaga ka aragtid sidaas? adiguna waa inaad samaydaa huu yidhi. soo ma jeclid inaad xaaskaaga sidaas ka aragtid? hawey marka waa inaad adiguna samayda. waxaa ka mid ah in oo labada qof waxyaalaha jacaylkooda keenaya in ay qofba qofka kale wax uu siiyo, oo waxa weeye hadiyadii oo kale in wax la isu hadiyeeyo. waa tii uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alhadiya tudhibu waxara sadr. hadiyadu waxay qaadaa oo tirtirtaa oo baabi'isaa qalbiga waxyaalaha ku jira oo dhan ayay tirtiraysaa. marka gaar ahaan hadda ninkii waxaa laga yaabaa in mas-uuliyadiiba ay saaran tahay oo asaga biilkiiba laga rabo wax uu bixinayo. gaar ahaan xaaskii oo kale waxaa laga yaabaa dumarku inay wax badan bixiyaan oo khayr ah. waxyaalahaas khayrka ah ay bixinayaan waxaa laga yaaba gurigeeda inuu ka gaajoon yahay, ninkeedii inuu duruufaysan yahay, inuu daymaysan yahay, inuu xaaladaysan yahay, ilmahoodii ay maaragtay duruufaysan yihiin, dhibaataysan yihiin. wax aad wax siidid waxa ugu xaq leh, haddiiba ilaahay uu ku karsiiyo ninkaaga a ugu xaq leh. wixii aad la bixi leed horta marka hore asaga baahidiisii wax ka gud. hadduu daymaysan yahay, hadduu duruufaysan yahay, hadday wax kasii yihiin asaga si. caruurtaadii sidoo kale macnaheedu maaha wax hala bixin, laakiin tani waa kasii ajar badantay ogow. waa axaadiis bukhaari iyo muslim ku taalla. xadiid saxiixulbukhaari iyo muslim intuuba warinayaan ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida dadka wacdiyey, sadaqana waa u faray. haddana dumarkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wacdiyey wuxuu yidhi war wax sadaqaysta oo la baxa, biladihiina iyo dhagadhagihiina wax kala baxa. markaas ayaa cabdullaahi binu mascuudkii aan kasoo sheekaynay xaaskiisii oo zaynaba la dhihi jiray ayaa cabdullaahi binu mascuud u timid. markaasay waxay ku tiri, waa xadiis bukhaari muslima, innaka rajulun khafiifu daati lyad wa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qad amaranaa bisadaqa fa'tihi fas'alhu. warniyow adugu waxaa tahay nin oo gacan maranay tiri, wax ma haysatid,
koleyta waa jeeb maran tahay. nabiguna wuxuuna amray calayhi salaatu wasalaam inaan wax la baxno, wax sadaqaysano. nabiga u tag calayhi salaatu wasalaam oo orod soo weydii adiga inaan ku sii kara iyo in kale. hadda koleyta haddaan wax bixinayo adiga xaq u lehe orod, maadaama adigiiba aad jeeb maran tahay oo gurigeenii ay xaaladi ka jirto. markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullaahi bnu mascuud, mayuu yidhi anigu ma soo weydiinayo, anigu arrintaas nabiga ma weydiinaya. haddaad rabti inaad wax la baxdid adiga hadda wax sadaqaysanaya nabiga soo weydiiya calayhi salaatu wasalaam. markaas ayay zaynaba gabadhii tagtay, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u tagtay. markay nabiga gurigiisa albaabkiisa gaartay ayay waxay u tagtay gabar kale ee reer ansaareed ah oo ayana xaajadan oo kale leh, oo ayana rabta inay nabiga weydiido calayhi salaatu wasalaam waxa ay la baxayso inay ninkeeda sii karto. markaas ayaa bilaal soo maray. marka waxay leedahay gabadhan markay xadiidka warinayso, wa kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qad ulqiyat calayhi almahaaba. nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay haybad ayuu siiyey, haybad ayaa lagu tuuray in oo la iskaga orordo ma fududayn. marka waxay tihi albaabkii nabigaan istaagna calayhi salaatu wasalaam. markaasaa bilaal noo soo baxay, mu-adinkii rasuulka. markaas ayaan waxaan ku niriyay tiri rasuulkii bilaalow u tag rasuulkaoo u sheeg 2 gabdhood ayaa albaabka jooga oo zaynaba ayaa ku sugaysa dheh. marka waxayna ku weydiinayaan in sadaqada rasuulkuna amray in aan nimankeenna sii karno iyo caruur agoonahoon haysano inaan sii karno naga gudaysa weydii, weliba zakadii iyo wixii kaloo sadaqaa. hana u sheegin dadka aan nahay ayay ku yidhahdeen, magacyadeena ha u sheegin intaa weydii. bilaal waa soo tagay, nabiga ayuu u yimid calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ku yiri rasuulka ilaahay 2daas gabdhoodaa su-aashaas way qaba, waana jawaabtaasay kaa rabaan. markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man humaa, waa kuwa ma labadoodu. markaasuu yidhi imra'atun min al ansaar wa zaynab, waa haweeney oo reer ansaareed ah iyo gabadha leeraa zaynaba. markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ayu zayaanib, zaynabadee, waa zaynabadee. markaas ayaa cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ku yidhi imra'atu cabdillaah, cabdullaahi bnu mascuud xaaskiisii weeye, waa zaynabadii cabdullaahi bnu mascuud xaaskiisa ahayd. markaa ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lahumaa ajraan, ajru lqaraaba wa ajru sadaqa. waxay leeyihiin 2 ajar, ajarka qaraabanimada ilaa ninkeedu waa qaraabadii ugu dhoweed, iyo caruurta agoonta ay haystaan waa qaraabadii ugu dhoweed, iyo ajarkii sadaqada. laakiin qof kale haddii ay siiyaan ajarkii sadaqada ay helayaan. xadiidkaas waa xadiid bukhaari iyo muslim intaba ku yaala. marka ha ogaato gabadhu markay wax la baxayso oo ilaahayba karsiya inay wax la baxdo, marka hore horta ha fiiriso al awlawiyaad, sida loo kala horeeyo. haddii ninkeedii uu duruufaysan yahay, haddii ninkeedii uu xaajaysan yahay, haddii ilmaheedii ay duruufaysan yihiin, in ay meel kala aado ma ahan. haddaad marka aad siidid ninkaaga wax oo aad la baxdid oo asaga ku ikraamtid oo ku wanaajisid, jacayl qasab waaba dhalanayaaba. waxyaalaha jacaylka keena ayay ka mid tahay. sidoo kale in oo dadkii wada sheekaystaan oo maaragta waqtiyo ka mida la wada sheekaysto, waxyaalaha keenaya ayay ka mid tahay jacaylka oo maaragtay reerka kordhinaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiidta bukhaari iyo muslim iyo axaadiidta saxiixa ee sida saxiix muslim ku sugan waxay sheegayaan nabigu inuu xaasaskiisa u qurcay jiro, u qori tuuri jiray. markaas ayaa habeen uu nabigu u qurceeyay, qurcadii waxay usoo baxday caaisha iyo xafsa. marka xadiidku wuxuu leeyahay wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa kaana billeyli saara maca caaisha yataxadath. nabigu hadduu habeenkii gaaro caaisha ayuu la socsoco jiray oo uu la sheekaysan jiray habeenkeeda. marka habeenada ka mid a ayaa caaisha iyo xafso ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qurcada usoo baxda, waa ay raaceen ayagoo la sheekaysanaya. markaas ayaa aduu qiso dheer halkaa kasii dhacday oo hadda aan waqtigeeda aana gelayn. marka in oo waqti la wada qaato la sheekaysto waa wax fiican weeye oo jacaylkii kordhinaya. waxyaalaha jacaylka reerka kordhinaya waxaa ka mid a in oo yacni daymadii iyo fiiradii oo kalkacaylka laheyd la isweydaarsado oo si naxariis iyo jacayl leh la isu weydaarsado. maxaa yeelay daymada iyo eegitaankan maxabadu ay ku jirtaahe
labadoodaba qofba qofka kaley waxay keenaysaa in qalbigiisa uu ku tallaalmo oo jacayl uu ka qaado uu usii kordho halkii maaragtay iyadoo la isku weji kaduudaya iyo ama luqada la isku adkaynayo la iskula hadli lahaa in oo jacayl naxariis iyo farxad uu ku jiro, daymo naxariis iyo farxad ay ku jirto in la is eego. waxa weye waa sunno iyo waxyaalaha jacaylka reerka kordhinaya. waxaana u daliila xadiidkii uu imaam ibnu maajah uu warinayay kitaabkiisa sunanka ah. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma stafaada almu'minu bacda taqwa allah khayran lahu min zawjatin saalixa. qofka muuminkaa alla kacabsiga markii laga soo tago oo ilaahay uu ka cabsado wixii ka dambeeya wax uu helo waxa ugu wanaagsan zawjo saalixa inuu helo. alla kacabsiga waxa ku xigaaba wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo qofku helaa zawjadii saalixada. maxaa yeelay zawjada saalixada ahi alla kacabsigii ugu heelinaysaa qofka, laakiin tii kale oo saalixada ahayn qofka alla kacabsigii ka fogeynaysaa, noloshiisay baabi'inaysaa, waxay u jiidaysaa alla ka fogaasho u jiidaysaa. marka zawjo saalixa ah ayaa ugu khayr badan uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wax qofka muuminkaahi uu faa'iido taqwada ilaahay ka bacdi. zawjadii saalixada aheedu nabigu yidhi sii tilmaam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam in amarahaa ataacatu, haddii uu wax faro waa ay adeecdaa. maxaa yeeley in la is adeeco waxay keenaysaa jacayl, qofba qofka kale inuu adeeco waxa weeye reerkii ha ku dhismaya. kow wa in nadara ilayha sarwatu, haddii uu fiiriyana waa ay farax gelinaysaa. waxa weeye weji kaduudan iyo dhaqan xun iyo lama soo qaabilayso. macnaha qofku marka inta la isfiiriyo farxad ay ka imaanayso waa markii labadii weji ay isu faraxsan yihiin. laakiin haddii mid uu midka kale sida dumarka qaarkood oon xanaaq oo ku jiro saacad kasta waxa weeye taas macnaha ma ahan saalixnimadkii kaa saaraysa. maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam zawjadii saalixada aheed qodobka labaad oo lagu garto wuxuu leeyahay haddii uu ninkaani fiiriyo way farxad gelisaa. marka qofkee farxad keeni kara? ma qof xanaaqsan, mase qof weji kaduudaya, ma qof oo indhaha ka dadbaya? waa qof si farxad la kuusoo fiiriya isaguna hadal fiican oo macaan kugula hadlay. wa in aqsama calayha abaratu, haddii uu ku dhaartana ay u baarinimo samaynayso macnaha wallaahi waxaas inaan la samaynaynuu yiri. marka dhaartii si uusan dembi ugu dhicin ayay wixii uu ku dhaartay ma samaynayso. taas way macnuhu. wa in qaaba canha nasaxathu fii nafsiha wa maalih, haddii uu ka maqnaadana xoolihiisii iyo nafteediiba way ugu khayr miraysaa, wanaagay ka shaqaynaysaa, way isu ilaalinaysaa. marka in oo daymada jacaylka uu ku jiro iyo naxariista la isweydaarsado waa waxyaalaha qofka labada qof jacaylkooda kordhinaya. waxyaalaha labada qof jacaylkooda kordhinaya waxaa ka mid ah in oo salaam naxariis leh markii guriga lasoo galo qofba qofka kale uu salaamo, la isu soo dhaweeyo, ama taleefoonkii markii la iskala hadlayo in si naxariis leh la iskula hadlo oo la isku salaamo oo maaragtay ka duwan dadka kale waa wax muhiima wey. waxaa ka mid a waxyaalaha labada qof jacaylkooda sii kordhinaya ee shareecada islaamku amartay. mar kastaba hadda anigu waxaan ka sheekaynayaa oo waxay diintu amartay oo dhanka sharciyan aan ka hadlaya in ninku xaaskiisa uu ammaano ama iyadu ay ammaanta ninkeeda. waa waxyaalaha jacaylka kordhinaya, waana wax sunno nabawiya ah oo nabi maxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. inuu qofku ammaano qofka kaleo wax ugu darsan yihiin waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. jacaylka ayayna kordhinaysaa. waxaa u daliila ninka inuu xaaskiisa ammaani karo. waxaa saxiixulbukhaari ku qoran oo uu abi muusa alashcari warinayaa in nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ina fadla caaisha cala annisaa'i ka fadli thariid calaa saa'iri adacaam. caaisha waxay dumarka oga fiican tahay oo kaga fadli badan tahay sida hilibka suqaarka leeraa uu cuntada kale uga fiican yahay. ammaan soo maahan uu nabigu ammaanayo. hadda intaan kala imaana intaasoo xadiido caaisha nabigu ku ammaanay, intaasoo xadiida nabigu khadiijo ku ammaanay, xaasaskiisa mid kastuu nabigu wax gooniya ku ammaanay. marka waxa weeye ammaanta la is ammaanaahi waxay keenaysaa jacayl, waxay keenaysaa naxariis, waxay keenaysaa in qalbiga wixii xumiga ku jirto ay ka tirtirto. intaasoo jira caaisha xadiid saxiix kaloo saxiixuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha jibriil waa kan asagoo ku salaamaya
markaasay tiri wacalayhi assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh taraa maa laa araa waxay tiri rasuulka ilaahi waxaana arkaysaa ilaa malagiya arkaysa jibriile waa ammaan uu ammaanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisoo dhan uu nabigu ammaanay xaasaskiisoo dhan ayuu nabigu wada ammaanay calayhi salaatu wasalaam marka taas waxa weeye waa ammaantii uu ammaanayay ninku xaaskiisa sidoo kale gabadhu waa inay ammaanta ninkeeda oo waxa weeye haddii ay ammaanto ayadana waxa weeye jacaylkii ayaa maaragtay usii kordhaya labada qof dhexdooda jacaylkii xataa dadka hortooda haddaad ku ammaantid waa wax khayr ah waxaa adilada ka midana tusinaysa in zawjadu ay ammaani karto ninkeeda cabdullaahi binu camar binu caas asxaabigii la dhihi jiray wuxuu ahaa nin aada iyo aada u cibaado badan oo maalinkiina sooman habeenkiina salaad ku jira marka maalin maalmaha ka mida gabadha loo guuriyey marka gabadhii markii loo guuriyey ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa u yimid asaga aabihiis camar binu caasa u yimid gabadhii marka markii hore xoogaa waxa weeye cabasho yar asagaa macnaha wuxuu leeyahay aabbahay gabaruu ii guuriya marka gabadhaas ma aana fiiri jirin cibaadadeen iskaa mashquulsanaa camar binu caaso aabihiisaa u yimid gabadhii u yimid markaasuu yidhi kayfa wajadti baclaki ka waran zawjkaaguu yidhi xaalkiisa ka war marka waxaa u yimid sodogeedii aa u yimid maxay ku tiri gabadhii cabdullaahi binu camar cabdullaahi binu camar sidaan idiin sheegay habeenkii wuxuu u taagnaa salaatuleyl maalinkiina soon gabadhan xaggeedaba maba fiiriyaba marka gabadhan sida caadigaa haddii ay u hadasho waxay dhihi lahayd ninkaas waxa weye nin fiican maahan hawlu iskaga jiraa dantiisu iska wataa gurigan maba soo galo waa nin saas iyo saasa ay dhihi lahayd laakiin gabadhaani sidaas ma sameyn asxaabiyadaahi cabdullaahi binu camarna waa ammaantay oo wanaagiisay sheegtay dantii kalena waa ay ishaartay oo inuusan ninkan guriga uusan xaaska danayn waa ay ishaartay waxay tiri ka khayri rijaal wa ka khayri lbucuulah min rajul lam yakshif lanaa kanafaa waxay tiri horta ragga dadka ugu khayrka badan oo kale weye iyo ninkan ugu khayr badan maradeennana ma soo roginay tiri cabdullaahi gogasheennana uma soo dhowaan yaa markaas ayaa camar binu caas uu xanaaqo uu markaas aduu hawshii galay reerka oo uu xaliyey marka calaayi kulli xaal ayadu gabadhaas waa ammaantay axaadiidta kaloo saxiixa oo tusinaysa ee bukhaari iyo muslim gabadhu inay ninkeeda ammaani karto waxaa ka mid a xadiidkii caanka ahaa ee la dhihi jiray xadiidkii ummu zarci gabadhii 11 gabdhood ee wada fariistay ee mid kasta ninkeeda ay ka sheekaynaysa xadiidka caaisha ay warinaysa midii ugu dambeyd oo 11aad waxay ahayd gabadhii la dhihi jiray ummu zarci markii ay ka sheekayday ninkeedii abu zarci waa ay ammaantay ammaantiisa aada ugu dheeraatay markay ammaantiisa aada ugu dheeraatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caaisha ku yiri kuntu laki ka abi zarcin liummi zarci anigu waxaan kuu ahaanayaa sida ninkii abi zarci la dhihi jira uu u ahaa xaaskiisii ummi zarci oo xaaskaas aada sidaas ugu ammaantay siduu u ahaa ayaan kuu ahaanayaa caaisha uu ku yiri marka waxa weeye gabadhu inay ninkeeda ammaanto wax ceeba ma ahan ama ninka uu xaaskiisa ammaano waxaa ka mid a waxyaalaha labada qof noloshooda dhisaya oo jacaylkooda kordhinaya in midba midka kale uu ku shukriyo oo gabadhii hadday wanaag kuu samayso inaad ku shukrisid oo aad u shukri celisid haddii ninkiina uu wanaag gabadha u sameeyo ay ku shukriso hadda dadka waa aragnay thank you alla isleeyahay thank you daas annaga mid kasii khayr badana nabi maxamed noo jiiday calayhi salaatu wasalaam taas waa caadi laakiin mid diiniyanaha oo kasii khayr badan nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sunica ilayhi macruufun faqaala lifaacilih jazaaka allahu khayra faqad ablaga fi thanaa qofkii wanaag loo sameeyo ee qofkii wanaagga u sameeyay yidhaahda ilaahay khayr ha kugu abaal mariyo ammaantii wuu ku xeel dheeraday iyo ducadii aada u ammaana macnaha qofkaas si fiican marka
sideedana qof haddaad jazaakallahu leedahay sunno ma ahan jazaakallah inaad tiraa kaliya waa jiinka waa la kordhigayaa laakiin jazaakallahu khayra a sunno ah maxaa yeelay jazaakallahu kaliya jazaakallahu macnaheedu laba macnoay leedahay khayr iyo shar labadaba waa noqotaa inkastoo meesha la joogo ay caddaynayso oo waxaa laga hadlaya ay caddaynayso inaan shar qofkan ula jeedin laakiin sida dhammayska tiran jazaakallahu khayran wey marka qofkii wanaag kuu sameeya nabi maxamed saa u amray inaad tiraa jazaakallahu khayran hadda xaaskaagii ee wanaag kuu samaynaysa ama ninkaagii ee wanaag kuu sameeya waa kasii mudan yahay midda kale nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleo tirmidi iyo abu daawuud warinayaan ayuu leeyahay laa yashkuru allah man laa yashkuru nnaas ilaahay kuma shukrin oo uma mahad celin qofkaan dadka u mahad celin qofkii wanaag kuu sameeya waa inaa u mahad celidid xaaskaaga waa kasii mudan yahay waxaa ka mid a waxyaalaha kale ee jacaylka reerka kordhinaya oo kalkacaylkooda kor usii qaadaya ninkii inuu xaaskiisa la wadaago arrimaha iyo waxyaalaha uu samaynayo inta badan haddaysan ahayn wax markaas uu fulinayo oo aan loo baahnayn mushaawaro iyo talo wixii kale inuu ula soo noqdo kala tashado waxyaalaha jacaylka kordhiya ayay ka mid tahay markastana ogaada aan hadalkaas ku adkeeya gabdhow iyo ciddii dhagaysanaysay waxaan aan ka hadlayno waa sida diinta islaamku qabto oo ugu kaamilsan oo u fiican qofkii intaan arki waayaahi yuusa isdhihin wixii saasaa diinta u sheegtay mana haydide ka carar meeshan yuusa isdhihin waxaa lagaaga baahanya inaad sabartid adiga haddii wixii aad leedahay ama aad mudnayd aad 100% weydid inaad ka roonaatid oo sabartid ayaa loo baahanya ogow qof kastoo ha isdhihin saasaa looga sheekeeyey wixii saas ka bedelan hadda meesha ha ka baxan hadheh taas ma aha qofka muuminka hadduu khayr helana waa inuu ku shukriyaa haddii culays ku yimaadana waa inuu ku sabraa reerkuna wuxuu ku dhisnaadaa labada qof oo mid dul qaato haddaysan labadii wada wanaagsanayn taas ogaada marka annaga waxaan ka hadlaynaa hawshan oo jacaylka reerka shareecada islaamku waxay ka qabto iyo in oo waxyaalaha kordhi kara ee diinta islaamku qabto rasuulka iyo asxaabtiisa ka sugnaada aan ka hadlaynaa haddii marka meesha ugu dambeeyay annagu asxaabtii iyo nabi maxamed ma gaarno bini aadan waxaan nahay weliba meel oo dhibaatada kaliya kugu sii caawinaysa u badan oo jooga haddaad sidii fiicneed weyday waa inaad dadaasho aduguna sidaa ka badi weydad aa wax ku dhistaa hood ku habaydaa labada qofna markasta waa inay kala roonaadaan marka inuu ninku xaaskiisi kala tashado arrimaha ayaduna ay kala tashato arrimaha waxyaalaha fiican weeye waxaad dhici karta xaaskaaga markaad la tashatid inay waxyaalo badan oo khayrahooda samay lahayn kugu dhiirigeliso haddaan qiso dheer oo cajiibaha jirta laakiin si kooban haddaan u idhaahdo axaadiista ku sugnaato imaamu tirmidi kitaabkiisa shamaa'ilka uu ku warinayo habeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay waqti dhexe isagoo aada u gaajoon nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu soo baxay abubakar sidiiqa soo baxay markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakar maxaa ku soo bixiyey markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow waan gaajooday markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam anigana sidaasoo kalea gaajaan la soo baxa haddana cumar binu khataabaa soo baxay markaasaa la yidhi maxaa ku soo bixiyey markaasuu yidhi rasuulka ilaahay anigana gaajaan la soo baxay caawa allahu akbar markaas ayay inta tageen waxay tageen gurigii asxaabigii la dhihi jiray abulhaytham binu tayhaan ee ansaariga ah nin wuxuu ahaa timir badan haysta iyo ari marka khaadimiinna ma lahayn markii ay gurigii tageen xaaskiisii kaliyahay ugu tageen asaga waa maqnaa markaasay yidhahan aaway saaxiibka ayna saaxibuka markaas ayay tiri biyo ayuu noo doonay marka waa uu yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inta isku duubo ku dhagay oo habsiiya nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi caaw wax iga marti fiican ma jiraan gogol ayuu u fidiyey inta beertiisii ku ordo laan timir oo weyn oo mira ka buuxan usoo gooyay markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo timirtii iyo ay sii cuneen iyo biyo iyo alaabo u keenay midina inta qaato ariga isku sii daayay inuu neef usoo gowraco markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam neefka dhalay iyo kan irmaanka iyo ha iska soo gowrac inuu yidhi aduu calaa kulli xaal qisada waa soo gaabinaynaa nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam si fiican ayuu u marti sooray oo u casuumay markuu nabiga casuumay oo labadii asxaabiya nabigu dhargeen uu nabigu yidhi nicmadan waa la idin weydi doonaa maalinka qiyaamo biyo qabow timir macaan hoos macaan alaabtaas iyo hilib iyo alaab waa inuu qof ku shukriya nicmada ilaahay siiyo intaa kabacdi ninkan hantina waa haystay khaadimna ma haysan markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax khaadima ma haysataa markaasuu yidhi maya markaasuu nabigu hadda abaalku gudi jiray wuxuu yidhi markii aad naloo keeno markaas waa tii addoonsi iyo ay jireen hadda caalamka dhan ay ku fahansareed haddii addooma noo yimaadaan noo imow aan khaadimku siinay
nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah loo keeno laba addoon. markii loo keeno abulhaytham u yeeray markaasuu yidhi mid ka dooro. markuu mid ka dooro yidhi uu rasuulka ilaahay adigu ii dooru yidhi, markaasaa nabigu yidhi ina almustashaara mu'taman, qofka lala tashaday waa qof la aaminay. ogow qof hadduu kula tashado waa ku aaminay, ha khayaanin. kan qaaduu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo tukanayaan arkay, khayrna u dardaaran yidhi, khayr u dardaaran. waa uu qaatay addoonkii, qisada waa soo gaabinayaahe, gurigiisiu geeyey, xaaskiisii ula tagay. markuu ula tagay yidhi addoonkaana rasuulku isoo siiyey, wuxuuna yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam khayr u dardaaran addoonkan. markaasay gabadhii waxay ku tiri xaaskiisii, adigu xaqi rasuulka hadalkii uu ku yidhi xaqiisa ma gudi kartid haddaadan xoreyn addoonkan ee xoree. maxaa ku yidhi khayr u dardaaran nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. markuu sidaas yidhi ayuu xoreeyey, addoonkii u xoreeyey. hadda xoreyn qof la xoreeyay imise ajar la agta, ilaahay qur-aanka intuu ku sheegay waa aragteen ajar weynideeda. bas waa uu tegay ninkii, nabigu u tagay calayhi salaatu wasalaam. markuu u tagu u sheegay oo yidhi rasuulka ilaahi xaaskayga sidaa ay tiri waan xoreeyey. nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, gabadhaas khayra u horseeda soomaa ninkeedii, war noo kaydiyo noo dhig, hadduu jaanisaan haysanaa ma dhihin. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina allaha lam yabcath nabiyan walaa khaliifatan ilaa walahu bitaanataan. ilaahay haddii uu soo diro nebi ama qof madaxaba uu ilaahay keena adduunka, laba saaxiibuu yeeshaa qofkaas. kow, bitaanatun ta'muruhu bilmacruuf wa tanhaahu can ilmunkar, dad oo saaxiib hoose ah oo wanaaggana farta xumidana ka reeba. kow, wa bidaanatun laa ta'luuhu khabaala, iyo saaxiib aan ka reebanayn wax shar oo shar kaliya kula talina, meesha xun kaliya u jiidaya. waman yuuqa bitaanata suu faqad wuqiya, qofkii laga ilaaliya saaxiibka xun waa la ilaaliyu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka xaaskaagu waa saaxiib wanaagsan oo kuu khayr badan u yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeelay waxay kuu shaqayda ajarkaa faraha badan. marka xaaskaaga haddaa kala tashatid arrimaha, qalbi wanaagna waa imaanayaa, waxaa kaloo imaanaya in oo maaragtay la isu calool fiyoobaado. waa waqtigiia iska dhammaan rabe. waxyaalaha jacaylka soo jiidaya waxaa ka mid a hadalladii wanaagsanaa iyo kalimaadkii dayibka ahaa iyo waxyaalahaas ayaa ka mid a. haddii xataa ay xaaskii ama xanaaqdo inaad maaragtay u dhimrisid ayaa ka mid a. maalin maalmaha ka mid a ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marta iyada u joogta ayaa xaasaskiisa mid ka mid a cunto usoo dhiibtay. markay usoo dhiibtay xeeradiyaa loo keenay cuntadu ku jirtay. markaas ayaa caaisha inta xanaaqday, guriga caaishuu nabigu joogay, ay xeeradii dhulka ku dhifato jebis. waa xeeradii cuntada dhan lagu keenay martida loo waday. markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gaarat ummukum, war hooyadiin waa masayrto yidhi, waa henaast. hadda caaisha waa umulmu'miniin soomaan. kabacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintii waa u xaliyay. marka waa inuusa qofku caradaas iyo waxaas uusa kasii faa'iidaysan. marka waxa weeye in oo labadii qof ay maaragtay xataa ninku waxyaalaha jacaylkii kordhinaya waxaa ka mid a xaaskiisii marka uu ka tegayo inuu dhunkoodo ama ayada ay dhunkooto. laakiin ma ahan sida akhlaaq daradan oo babliga iyo taas lama ogola, ma fiicna, islaamka uma fiicna. laakiin gurigood markay kula tagayaan inay isdhunkoodaan. rasuulka ka sugnaata calayhi salaatu wasalaam axaadiistay ku qoranta inuu nabigu dhunkoo jiray xaasaskiisa. marka waxyaalahaas waa waxyaalaha jacaylka kordhinaya. waxyaalaha jacaylka burburi kara waxaa ka mid a in la isku jeesjeeso ama dareenka qofka waxa dhibayo o dhan lala yimaado. qofkii inaan la danayn oo hadalkiisa aan la dhagaysan, inaan la is-ixtiraamin, ama xadgudub gacneed uu meesha yimaado. waxaa kaloo ka mid ah eedda faraha badan. waa ka mid eedda faraha badan ma fiicna. waa in qofku uu qofka kale eedda ka yareeya. ninkuna waa inuusa gabadha markasta eedaynoo canaanan oo uusa hadal badan gelin, ayaduna ay eedda yaraysaa. intaas ayaan casharka kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.